بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. هل كان وحرونت لتلنت حقوق ضدك iyo horumarinta shaqada Dictoray Safin wala shay in la hadlaysana waa Dictoray Safin marfash hadaad furatid iyo murankuyoonkiis muxubadii ka dhamaatiyo milgaha lahaydeen magac laguma raadiyo wixii mawla ka xarimay meega soo qabsiyo muslim kala magacaabistiis mayta dhimatay kala macnaynteed muslim inaad xagxagataan soo xaaraan ma ahan macnahaas garan waaye dadkaygii way jaha wareereene meediyahan maamuuska lahayn maytacayga iyo gafka iyo gardarrada mooshin baa ka yaal meediyahan maamuuska lahayn maytacayga iyo gafka iyo gardarrada mooshin baa ka yaal marwe iyo mudane ummadaas arliga joogta ummadaas arliga joogta inta aan soo micneeyay haddaad ila garateen aduunkuna mooshinka ila qaata Soomaali murtiday lahayd iyo maamuus wanaagii mool inuu ku dhacay bal ila micneeya Soomaali murtiday lahayd iyo maamuus wanaagii mool inuu ku dhacay bal ila micneeya inta aan soo micneeyay haddaad ila garateen aduunkuna mooshinka ila qaata walaalayaal wax yar oo macnaa haddaan ku daro walaalayaal waxaa jira dad walaalo ah oo Soomaaliya asleedahay waa dad Soomaaliyeed ama waa dad Ilaahay aqli iyo maskax iyo miir intaba siiyay oo dadka ugu sareeya ah oo haddana intay meel soo fariistaan dhahaya war meega soo qabso oo waxaan Ilaahay ka raali ahayn daldalhaya oo afkaygu ma karo waalidkii caynhay oo ehel oo ummadii caynhay oo wax ay ku hadlahayaan oo Ilaahay baan hadii Ilaahay ku ron yahay Ilaahay weyna waaxidaha ku haayo hoostoodii iyo dabadoodii kala tilmaamaya 24 saac afkoodu noqday eeyow dhala iyo hebel iyo hadii alkuure doofaar dhala iyo wax ka sii liitay kayga soo qabsiya kayga igu soo dhig ay tahay walaalayaal wax fiican ma ahan saxaf fiicanna ma ahan wanaagna ma ahan Ilaahay waxaan dadka walaalaheena ee meediyaha ku jira waxaan leeyahay hebel iyo hebel anu midna ma dhahay waxaan leeyahay walaalayaal dib iskugu noqda Ilaahay ka cabsada ummad baa idin dhageysanaysa mas'uul baa tihiin dad waaweyn baa tihiin dad badan baa idin dhalay hooyaa idin dhashay aabba idin dhalay walaalaa leedihiin dad baa idin dhageysta oo isku xiran oo dad oo anigu aan ka mid ahay meel kasta aad joogtaan walaalaha gudahooda iyo futadooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda tilmaamaya ama qof kale uga dhacaya ama qof kale waalida ama qof kale walaalaha wax ka sheegayo caynahaya ama xaaraantimeynaya walaalayaal waxaas la iska dhaaf waa la dhimanhayaa caaway dadka yarka had galaysaa cid qof kugu welinaya male walaalayaalow Ilaahay baa risaaqada bixiya meel inta soo fariisataan meega qabso hebel ku dhalay qabiil ku dhalay xaaraantu dhashay kiyo fitadaada dabadaada war waxa dad waaweyn lagu ma aha war waxa sharaf ma aha war ilma adeerayaalow dadka waxa isku daya waxaas kala sheega waxaas kala micnaya dib ha uga noqdeen walaalaan nahay waa u nasteexaynaynaa hadday rag yihiin hadday gabdho yihiin waxa sharafno ma aha dhaqan Soomaaliyeed ma ahan muslimnimo ma ahan walaaltinimo ma ahan sharafteena ma ahan ilma adeerayaal waxaas dib uga noqda waxaan marka in kula dardaarmaya ilma adeerayaal qof walba godki yarka aha la dhigaya meel yar buu galahaya war adiga ilaasho noloshaada yarta bari waxaad qabriga la tagi lahayd ilaasho hooyo islaameedoo dhimatay aabba islaameedoo dhintay haddii algo dhaqan xumo maartay caruurtaada iyo ilmahaaga uga tagaysay waxa sheegaysid uma quurno gurigeena cunuga inaan niraahno
nadis yow nadiskiisu markaan niraahno waxa waaye waa qoomamaynaa macnaha nadis dhale markaan niraahno waa qoomamaynaa laakiin wax ka badan markaan niraahno bal ka wara ninka la leeyahay cunugii agtiisa lagu leeyahay waraa halkayga dabadayda soo qabsiyo gudahayga ku dhagiyo kaa iga qabsa iyo kaa iga yeela leeyahay war dhaqankeena xagee jiraa war awlaadda maxaan ku suubin karnaa war ilmaha xagee geyn karnaa war sharafteena xageen geyn karnaa ilma adeerayaalow waa iga codsi waxaa haddaa adinka idinku fiirsano idinku dhegaysano idinkugu faraxno oo maalin kasta aan laygta idiin saarno annaguna dembi baan ku qabnaa marka idiima saari karno wax ilaahay uusan raalli ka ahayn laygna idiima saari karno adinkuna waxa kuma heli kartaan walaalayaalow waxaa annagu u baahannahay maadaama aad meediyihii ka hadlaysaan oo joogtaan soomaali aad tihiin 2 qodob ama 3 qodob baan maanta idinkaga baahannahay inaan idiin maaragtay idinka codsado oo soomaali a u qabataan maadaama aad jaanis u leedihiin oo meeshii aad soo firsaan 1 dhaqankan xun inaad iska daysaan adinku oo aad naga daysaan dhaqankan xun 2 nabadayn inaad raadisaan oo dalkan Soomaaliya nabadayn laga raadiyo oo walaalo noqotin walaalo maaragtay hadii aan ku raahay israaca aan noqotaan oo gacanta isqabsataan oo hadii Ilaahay ku raayahay adinku wadamo islaameed baa joogtaan bari waa la idinka soo tarxiili karaa wixii la rabaa la idinku soo dhifan karaa walaalayaal anoo dalkii baan joognaa dad masaakiinaha nahay dalkoodii diintoodii baan haysanaa walaalayaal waxaan rabnaa maadaama aad wax haysataan nagu kaalmeeya kaliya inaad wanaagna soo fartaan war dalkiina haysta oo caruurtii aysan naga qaxin oo meelahaas aad ka qaylinaysaan u maleeyaan wax fiican aysan u maleyn ay u maleeyaan wax fiican meesha laga qaylinayo oo ilmihii dhaqan xumada maartay waxa jeegada iyo balaayada iyo dharka xumada iyo labis xumada dhulkan la keenayo oo wadankii marka lagu soo noqdo lagu sameeynayo gabdhihii labiska xumada ay qaadanayaan iyo wiilashii labiska ay qaadanayaan surwaal waxaad arkaysaa kastuuma kaliya wiil ku socda arkaysaa 24 saac kunniikinayo ku socda waxa oo si gabdhihii u laafiyoonay waxa arkaysaa gabar bijaamo ku socoto duur ku socota walaalayaal dhibkaas oo dhan baan haysto ilmihii halkaas ay marayaan oo gabadhii xaragoonaysa bijaamay ku xaragoonaysa bijaamadii guriga la isku qurxin jiray ku xaragoonaysa oo wiilkii xaragoonayay oo lugihiisa iyo sharaftiisa ilaashin jiro gabadha ka xishoon jiray halkaas wax ka balafleeyina kastuuma xun buu qabaa war arintii waa nagu xun tahay walaalayaal Ilaahay inta ka cabsataan oo dib u noqotaan wadankan qabiilka ka daaya walaalo isjecel noqda runtii waxaan rabaa in wax la isku keeno 2 magac kaliya xataa ku soo hara isku xifaaleeyo hadaa rabtiin laakiin wadankan qabiilka jiifada iyo qashinka iyo luuqalowga laga daayo midda labaad gabdhaha la xumaynayo oo rag xumaynayaan hal laga hadlo isku meelna aan uga soo jeesano kuwana cirka jira iyo dhulka joogaba gabdhahaas aan meel uga soo jeesano oo la xumaynayo gabdhahana waxaan leeyahay gabdhayahow lugihiina dhulka dhiga oo xishooda oo isku xishooda oo ilma adeerayaalow unaxa jirkiina u naxa oo noloshiina u naxa oo waalidiintiina u naxa oo muslimiinta u naxa oo annagoo Soomaaliya noo naxa ilma adeerayaal oo isku xishooda wiilasha laftigooda Soomaa wiilaliyow bahalada maartay wiilkii wanaagsan waad wanaagsan tahay gabadhii wanaagsan waa wanaagsan tahay laakiin wiilasha gabdhaha daba dhigtay oo koolada iyo qamrada iyo balaayada inta caba daba dhigtay waradhow meesha gali lahayd baa la rabaa ama waa dhimanaysaa ama naftaada u dhimanaysaa ama gurigaagii cidaad yaa marsan lahayd walaalayaalow anigu ma dhahay meedii haddan waa laga wada xun yahay dad wanaagsan baa ku jira oo si qurux badan oo wanaag badan ummadda wax ugu soo gudbiya oo Ilaahay ka cabsada oo ummaddu ay ku nooshahay kuwa dhulka joogiya kuwa kale ama cod ha ka hadlaan idaacad ha ka hadleen ama TikTok hadleen dad wanaag ku soo jeediya jooga laakiin inta xaniyahoodii iyo dabadooda fardaynaysa maanta oo dhan oo TikTok fadhida walaalayaalow naga xishooda Ilaahay ka cabsada hadda anigana maaragtay hay ugu soo jeesanino waan maaragtay hadii Ilaahay ku rooyahay laftigaygu maaragtay waa duqayska idin soo galay ugu qaata waa idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh